Mahdi Maxamed Guurad Qadar, Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, ayaa Sabtida 7 Diseembar waxa uu daafuray madasha saddexaad ee siyaasadda iyo dhaqaalaha oo muddada 2 maalin ee soo socota ka socon doonta magaalada Muqdisho. Madashan ayaa waxaa soo agaasimay Golaha Dhaqaalaha oo dowladda Soomaaliya kala taliya arrimaha dhaqaalaha dalka Soomaaliya iyadoo lagu sareynayo cilmi baadhis iyo cadeymo sidoo kalena dowladda ay talo ka siiyaan hagidda arrimaha ku aadan dhaqangelinta siyaasad dhaqaale oo tayo leh kana caawiya isku dubaridka kheyraadka dalka Soomaaliya iyo dibadda fulinta qorshayaasha dhaqaalaha iyo arrimaha maaliyadda dalka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guurad Qadar oo ugu horeyntii goobta ka hadlay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay madasha saddexaad ee maanta la daafuray iyo waxyaabaha ay salka ku hayso. Maanta isugu nimaadno kulankii saddexaad ee Golaha Dhaqaalaha Qaranka oo inoo furmay lagagana hadlayo mawaadiic aad muhiim u ah oo dalka dib u habeyntiisa dhaqaale iyo horumarintiisa dhinaca dhaqaalaha iyo wax soo saarka fikir iyo maskax dhaqaalayahanka kala duwan marka ay isu geeyaan waxtar u leh dhaxalna u noqon doona in hay'adaha dawladda ee kala shaqeeya ay ku shaqeeyaan fuliyaan hadhow. waxaan soo markii ugu horeysay aynu isugu nimaadno kulankan kii koowaad oo isdhexgalka tiirarka waaweyn ee dal halboole u noqon kara ay guddidu halkan ku soo dhigtay doodaheeda ku soo bandhigtay dhinacyada dhaqaalihii inuu ku xidhan yahay amni aanu jirahaynin haddii aanu dhaqaale jirin iyo wax soo saar dawladda waajibaadkii saarnaa ee ahaa adeeg inay bixisaa aanay jirahaynin haddii aanu jirin dhaqaale oo adeeg in la bixiyo caafimaad iyo waxbarasho iyo ilaalintii deegaanka iyo gargaaradii iyo adeegyadii kala degdeg ah ee loo baahnaa suurtageli maayaan haddii aanu jirin haddana dhaqaale. siyaasaddii lagama shaqayn karo nidaam maamul oo hufan oo waxyaabaha kala duwan ee aynu ka hadlayno musuqmaasuqa la dagaalamkiisa iyo lagaga hadlayana hadda kulankan saddexaadna ma suurtagelayo haddaan hab maamul iyo nidaamka dawladnimo ee jiray iyo siyaasadeed dalkaasi leeyahay aanu ahayn mid hufan kaasina wuxuu ku suurtagelayaa hay'ado taabagal ah si loo sameeyo inuu dhaqaale jiro. marka dhaqaaluhu waa laf-dhabarta iyo halbowlaha jiritaan dal afkaarta iyo aqoonta iyo maskaxda ballaaran ee dhaqaalayahankiinan isu yimid aad maanta iyo bari iyo saadamba ka doodi doontaan dhowrka cisho shirkani jiro waxa ay waxtar markaa u yeelanaysaa sideen dhaqaalaheena u kobcinaa sideen isu taagnaa sideen u jiri karnaa qaran ahaan. doorkana waa muhiim markaan mowduuca eegay dib u habeynta loo baahan yahay si deganaansho dhaqaale loo helo dhaqaalaha deganina uu ahaado mid jiritaan dheer leh. Golaha Dhaqaalaha Qaranka ayaa Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu wareegto ku magacaabay 12 bishii Julaay sanadkii 2018 waxaana Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre uu daafuray August 11 sanadkii 2018 waxaana xilliga kadib si rasmi ah ay u gudagaleen hawlahooda ku aadan horumarinta dhaqaalaha dalka Soomaaliya. Ciidaar Usmaagane wararka laanta afka Soomaaliga ah ee codka bariga Afrika Muqdisho. si aad joogto ugu hesho wararka iyo barnaamijyada telefishinka codka bariga Afrika fadlan iska diiwaangeli channelkayaga YouTube-ka ama dooro bogaggayaga baraha bulshada ee Facebook iyo Twitter-ka.